bahal dadka baalash indhahooda dul fuulaa kadib timaha baalash indhahooda guraayo oo dad badan social media ay kaga hadleen xataa Facebook iyo dad badan jidal igu soo diray ayarma inaan muuqaalkan falcelin kaga sameeyno waxa sax ka iyo waxyaabaha ay ka badbadiyeen sidoo kale qofka xaaladan leh ama timaha baalash indhaha haduu ka dul fuulo muxuu dareemi karaa oo sidoo ku ogaan karaa in timaha baalash indhaha uu ka saaran yahay dadka qaarna waxay isweydiinayaan qof shanta salaadood dukanayo oo wasaqaadna ma laga yaabaa wali inuu ka dul saarnaado iyo muuqaalka waxa ugu dambeeya aan kaga hadlayno waxay tahay xalka ugu dambeeya oo lagu ciribtiri karo bahalkaas kaliya adiga waxa laga codsanaa muuqaalkan la gareys asxaabta aan nasiib u yeelnay muuqaalkan helaan inaad la wadaagtid habeenkii markaad seexato oo indhaha isku qabato jirkaaga maxaa ku dhacaya bahalkan aad u yar ee lagu magacaabo might oo aysan suurtagal ahayn inaad indhaha ku aragto adigoo might waa leedahay xataa marka qaar waxaa loogu magac daraa dermodex magacaasna waa la yiraahdaa adigoo isticmaalay Microsoft ayaa waxa ku dhex nool yahay baalasha indhahaaga markii microscope ahaan loo fiirinayo qaabkan uu egyahay aad u jeedin oo sidaas u dhaqaaqaya makhluuqan ku dhex nool baalasha indhahaaga waxa uu kala leeyahay lab iyo dhadigoodana waxay dhashaa 20 ilaa 24 ukumood waxayna ku dhex dhashaa baalasha indhahaaga ama indhahaaga dhexdooda hadaba bahalkan lagu magacaabo might maxay tahay shaqadooda maxay ka dhex qabtaan baalasha indhahaaga oo ay ku dhex nool yihiin habeenkii markaad seexato oo indhaha isku qabata ayay soo baxayaan waxayna ku dul soconayaan hareeraha indhahaaga shaqadooduna habeenka kaliya ma aha inuu standby ku jiro oo ku sugaa bas inaad seexatid kawar qofka hadii uu hurdeen oo soo jeedo macnaheedu miyaa ma ku dhex soconayo ma taa baalasha indhaha mar walba ku dhex socaa shaqadiis waa wataa asiga laakiin laga yaabo habeenkii kale soo bax meelaha soo furo laakiin kuma xidhna habeen xataa adoo soo jeedo sameyn kara waxa meeshan waa laga badbariyay waxay tahay inay cunaan maqaarka indhahaaga oo dhintay si ay dib ugu soo cusboonaysiiyaan banaanka u soo bax waxyaabaha uu guraya laakiin waa hadii tiradoodu yar yahay haduu badan yahay xataa timaha baalash indhahu ka guraya halkan aad ku yar waxay sheegeen culimada inuu ka qayb qaato quruxda qofka bini'aadamka asagoo dib u cusboonaysiinayo maqaarka jirkaaga marka isaas ma ahan kaliya timaha baalash indhahu gura ana qatar waa waxaan leeyahay karaa cadowgaaga koowaad ee timaha baalash indhaha gura waaye marka qofka hadii uu leeyahay xaaladan waxyaabaha isku arkay waxay tahay cuncun timaha baalash indhahu daato xitaa marka waxa laga yaabaa abututu ama nabraha timaha baalash indhaha agtooda ka soo baxta inuu asiga uu ku sababo asalkeeda dadka dhahayana qof shanta salaadood dukanayo wasaqaadanayo ma laga yaabaa inuu wali dulsaanaado waa laga yaabaa biyo bas kama suuli karto xilliyada baaritaanka indhaha la sameynayo kale markii lagu arko xilliyada waxa la dhihi jiray shaambada caruurta ee loogu qabeeyo ku dhaq waan sax inta badan waa jirtaa laakiin waxa lagu arko kale timaha baalash indhaha kale markii ay shaambaas lagu dhaxata marka qaleel inay sameyso waa ay laftirkeeda xataa guritaanka in ka saacidin marka dartaa xataa waxa soo bax agab oo sida suuf oo leh oo kale waxyaabo daawo loogu talagalo oo tartiib maalintiisas loogu dhaqaayo oo boko 3 xabo halkan soo saarayo oo waxyaabo ugu dambeeyay agabyo kala jira hadartan oo soo baxay oo lagu nadiifiyo lagu nastiro oo qofka hadii uu bilaaw yahay waxa laga yaabaa inuu 3 maal 4 maal xataa uu isaga nadiifiyo haduu aad ugu badan yahay ugu badnaan hal bil si nadiif ah laakiin kaliya biyo ku dhaqda ka ma caawinayso qof walbana ma leh mid aan rabnaa muuqaal ku soo gabaxayta qof walba ma lahan oo ma ahan wax qofka hadii meel yar cunto inuu leeyahay kaliya waxa lagu arkaa xilliga baaritaanka oo qofka haduu isaga shakiyo inuu timaha baalash indhihiisa guraayo marka cudurro badan ay keeni karto timaha baalash kaliya ma aha inuu bahalkaas uu ku keenayo dermodex loo yaqaan marka hadii aad iska shakto timaha baalash indhaha ka gurma cuncun ama nabra xataa timaha baalash indhaha kaga soo baxayo waxa wanaagsan qofka inuu baaritaan indhaha sameeyo oo laga yaabo xataa bahalkaas uu ku keenayo in si fudud aad isaga cirib tirtid indhahaaga caafimaad buuxa oo ku yeesho intaas ayaa muuqaalkeena kusoo gabinaa muuqaal ka faa'iideysan like noo saar walba adduunka jirto waxay dirjaa caafimaad iyo nafiyo